bandhigan uu soo qaban qaabiyay maamulka sare ee dugsiga farsamada gacanta Bruge ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaa ka qayb galay ardayda dugsiga farsamada gacanta, qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada iyo jaamacadaha dalka, maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo maamulka sare ee dugsiga farsamada gacanta Bruge. Cabdimajid Qadar Cali, maamulaha sare ee dugsigan Bruge, ayaa sharaxaad ka bixiyay farsamooyin kala duwan ee ardayda la baray. maanta meesha waxaan ku qabanay bandhig ku saabsan in aan ardaydii sanadkii la soo dhaafay agabyada soo saaray ama waxqabadka sameeyay aan dhiirigelin u sameeyno ayaa maanta meeshan ku qabanay. waana u mahadcelinaa dhammaan bahdii ka soo qayb gashay, waalidiintii, ardaydii iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay. waxaan ummadda Soomaaliyeed aan rabnaa inaan fariin halkan uga diro in ay fahamka ay ka haystaan farsamada gacanta uu ku yimaado horumarin badan, in wax badan laga bedelo. fahamka hadda ummadda Soomaaliyeed haddaan aan ka haysano farsamada oo ah in ay dad gaar ah ka shaqeeyaan ama maxaa la yiraahdaa ay tahay hawl aysan maxaa la yiraahdaa dadku kulli ay ku wada faraxsan inay ka howlgalaan. fahamkaas inuu isbedel ku imaado oo dadka Soomaaliyeed u fahmaan in wadanku wuxuu ku horumari karo ay tahay farsamo la dhiirigeliyo. ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay maalgeliyaan dugsiyada farsamada gacanta si jiilka dambe ee Soomaaliyeed ay noqdaan jiil farsamo yaqaan ah isku filan. gudoomiyaha ururka macallimiinta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Cumar Aadan Saxane iyo Dr. Aadan Shidane, gudoomiyaha jaamacadda Hormuud, ayaa sheegay in farsamada gacanta ay wax badan ka bedelayso shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. hadda waxaan u baahanahay microphone-kan aan ku hadlayo intii la iga keeni lahaa America ama Japan, la iga keeni lahaa ama China, la iga keeni lahaa wax ii sameeyaan u baahanahay. gacanka yar aan ku hadli, kan yar aan ku hadli oo intii la iga soo adduunka meesha ugu sheegay la iga soo qaado lacagta la iga siin, haddii inta la igu soo saaro maya waxaan u baahanahay in inta lagu soo saaro ayaan u baahanahay. runtii waxyaabo badan ay soo jiitay waxaa ka mid ahaa maxaa la lahaa miiska marna ahay boorsada ahaa marna miis noqonayay. dugsiyada quraanka ayaan runtii maxaa la lahaa dhibaatooyin ka taagan tahay wax ka xallin karaa oo ah ardayda dhulkay fadhiistaan mararka qaar miisas la'aan ayaa haysato. marka miiskaas oo kale waxaan rajaynaa maamulka dugsiyada quraanka inay ugu deeqaan walow hal dugsi ba Allah ka dhiga ama laba dugsi ka dhige. qaar ka mid ah ardayda oo shahaado sharaf la guddoonsiiyay ayaa uga mahadceliyay maamulka sare ee dugsiga farsamada gacanta Bruge doorkii ay ka qaatay kobcinta aqoonta ay ku shaqeysan lahaayeen. aniga intaan ku soo biirin iskuulkan ka hor waxaan u maleynayay meel farsamada gacanta oo kaliya lagu barto oo aan ka helin maadooyinka caadiga ee dugsiga sare, laakiin sidaas uu ka duwan yahay oo waxaad ka heli kartaa farsamada gacanta ayadoo lagu barayaa maadooyinka kale ee dugsiga sarena. waxay ahayd farxad aad u weyn inaan ka qayb qaato, inaan ka mid noqdo ardayda Bruge kuwaasoo ka qalin jebisay qaybta makaanikada. waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay ardaydaasi ka qalin jebisay. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan maanta hortiina taaganahay anigoo liigu casuumay waxqabadka iyo waxbarashada meesha ka imaaday. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.